Recep Tayyip Erdoğan'ın konuk liderler Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Şeyh Mahmud ile Somaliland Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Silanyo'nun huzurunda iki ülkenin bakanları tarafından imzalanacaktır. Ankara bildirisine Somali Federal Hükümeti adına Bakan Abdülkerim Gulet, Somaliland Hükümeti adına ise Bakan Muhammed Ömer imza koyacaklardır. wadamada Somaliland iyo Soomaaliya oo maalmahan uga socday wadankan Turkiga shirkii wada hadalladu ayaa maanta la soo gabagabeeyay waftiga labada dhinacba waxa ay maanta la kulmeen mas'uuliyiinta loo daba fadhiisto talada wadankan oo ka mid yahay ra'iisul wasaaraha madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha dibadda intuba haddaba waxa galabta qalinka lagu duugay heshiis ka kooban 7 qodob toddobadaasi qodob haddaba isaga oo wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland ka hadlayana waa kuwan bismillaahir rahmaanir rahiim maanta oo ay taariikhdu tahay 13 bishii afraad sanadkan 2013 waxa magaaladan Ankara ku kulmay labadii wafdi ay kala hogaaminayeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland madaxweyne Ahmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku kulmay magaaladan Ankara maanta kulankan sida laga warqabo waxa martigeliyay oo abaabulkiisa iyo martigelintiisa leh dawladda dalkan Turkiga oo uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha dalkani ujeedada shirkuna waxay ahayd in mar labaad dib loo furo wada hadalladii labada geesood ka hor u bilaabmay ka dhacay magaalada dalka Ingiriiska iyo dalka Imaaraadka Carabta labadaba waxaana ka soo baxay heshiis 7 qodob ah oo aan jecelahay inaan halkan ka akhriyo qodobka ugu horeeya wuxuu leeyahay labada geesood waa Somaliland oo geesa iyo Soomaaliya oo geesta kale ah waxay ku heshiiyeen in ay sii wadaan wada hadalladii laba geesoodka ahaa ee labada dal sanadkii hore u bilaabmay qodobka labaad waxay labada dal ay si buuxda u ogolaadeen heshiisyadii ka soo baxay labadii kulan ee sanadkii hore dhacay kii ka dhacay magaalada Chevening House ee loo yaqaan declarationkii Chevening iyo kii ka dhacay magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta iyo qodobadii ku xusnaa labada kulan iyo labada heshiisba qodobka saddexaad waxay labada geesood qeexeen in wada hadalladani ay u dhaxeeyaan laba daraf Somaliland oo mas'uul ka ah dhulka iyo dadka Somaliland iyo dawladda Soomaaliya oo iyana Soomaaliya wakiil ka ah iyo beesha caalamka oo iyana ka fidinaysa markaa gacan iyo taageeraba ka bixinaysa wada hadalka labada geesood qodobka afraad waxay labada daraf ay ku heshiiyeen in laga wada howlgalo sidii ay Somaliland kaalmo caalamiya iyo taageeraba xagga horumarka ay beesha caalamka uga helayd oo la kordhin lahaa taageerada iyo kaalmada ay Somaliland adduunyada ka hesho qodobka shanaad waxay labada geesood ku heshiiyeen in la xoojiyo iskaashiga ka dhaxeeya khaasatan xagga nabadgelyada oo la wadaago xogta iyo wararkaba in la wadaago tababarada iyo in la wadaago scholarshipska ama deeqaha xagga tacliinta dibadda ku wajahan dhinaca xagga amniga iyo shaqaalaha amniga ka shaqeeya qodobka lixaad waxay labada geesood ay soo jeediyeen in muddo 90 cisho gudahood ay mar labaad ama markii saddexaad aan raadeen inay kulan yeeshaan waxaan la isla qaatay in kulankaasi uu ka dhaco dalka Turkiga magaalada Istanbul waqtiga wali lagu heshiin labada geesood baa si gaar ah uga heshiin doona qodobka ugu dambeeya oo qodobka 7aad waxay labada geesood ku heshiiyeen in ay ka waantoobaan in la isticmaalo hadallo ama saxaafadda la isku mariyo ama si kalaba loo dhigo oo wax yeeli kara nuxurka iyo dareenka iyo spiritka wada hadalka u furmay labada dal oo wax yeeli kara iyo wixii kale wax yeelayaba wada hadalladaasi waxay doonaan noqdaan wax alla wixii wax u dhimaya wada hadallada iyo qodobada lagu heshiiyey iyo kuwii labadii shiree horeba lagu heshiiyey in labada geesood ay ka waantoobaan oo arintaas ay xumeyn karto wada hadalka
ayaa ugu dambeeya qodobka lagu heshiiyey. labadan qodob waxaa qalinka ku duugay wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed. labada wasiir waxay wakiil ka ahaayeen labada madaxweyne oo goobta lagu saxeexayay goobjoog ka ahaa, isla markaana waxaa goobtaasi markhaati ka ahaa ra'iisul wasaaraha waddanka Turkiga Tayyip Erdogan oo lagu saxeexay xaruntiisa magaalada Ankara. wadahadalladan ayaa ku soo dhammaaday heshiis iyo is-afgarad. Cali Axmed Raabi Cali Senyo, Hon Cable TV, Ankara, Turkiga.